Welcome to Nulii Productions. Subscribe for more videos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وبهدينا عليه وإذين ودا قصة عصوب ولا مقع بهدي إسكاكيلو waxaan idin la socodsiin doonaa anigu ah Nuuridiin ku soo dhawaada qisada qaybteeda koowaad. In cabaarah markii aan jiifay waan hurdo iska waayay ayaan waxaan mar qura ka soo toosay jiifka oo aan soo fadhiistay. waxay hay caajis baas oo aan garanayn halka uu igaga yimid. waxaan soo u qaatay in dhafarkii habeenkii aan ka qaaday ciyaar ka mid aheeday horyaalka England oo aan daawaday ay hurdo la'aanta iyo caajiskaba igu wacnayd. saacadeyda ayaan eegay mise waaba 3 habeenimo iyo qadar 15 daqiiqo ah. alla waqtigu socod gaabana. sirrteedii ayaan dib iskaga laabtay. intaa kadib waxay ii xigay cod idhahaya Xamza kac maama saaka hurdada waad ku daahday. markaas baan anoo faraha isaga celinaya fallaaraha cadceedda soo kacay mise waaba hooyaday Maryam. hooyo baa igu tiri beri waxaa baxaya Asad ee aroor hore i kici Soomaadan ee oran hooyo. waayahay maama baan ku iri. kadibna intii aan sariirtii ka soo booday haddana saacadda eegay waaba 6 aroornimo iyo 15 daqiiqo. waxaana ka haray xilligii ballanta 15 daqiiqo. waxaana ku ballansanaynay Asad inaan u raaco garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho oo uu maalinkaasi ka dhoofayay. anigoo aad u degdegaya ayaan gaarigii yaraa dalab ku soo dhahay oo aan guriga ka soo baxay. waxaa aniga oo xawaare ku socda isku soo dhigay wadada dheer ee wadnaha, kadibna dhinaca bidix u leexday isgoyska Howlwadaag. waxaan fooda saaray dhinaca sayidka, dabadeedna midig ula sii dhigay wadada Maka al-Mukarrama aniga oo ku sii wajahan xaafadda Trebiano oo Asad ku noolaa. markii aan la leexday jidcadaha laga gala xaafadda baa mar qura indhahaygu qabteen qof wadada bartankeeda taagan. mise waaba gabar. waxay ahayd qof aan dareemayo inay duruuf daashatay, balse qurux dabiici ah Ilaahay ku manaystay. haddii ay hesho qof dayactira ku sameeya micnaha dhaqaaleeya, waxay lahayd midab biyo dahab aad moodo ama maariin. joog bay lahayd, jirkeedu dhexda buu u yaraa, dhinacyada sare iyo hoosena u yara weynaa si qiyaasan. waxaan ka samri waayay bishmaheeda aadka u qurxoonaa oo aan dareen ka qaaday. waxaa aad cajiib u ahaa indhaheeda buurbuuran iyo sunniyaheeda bil dhalatay oo kale u qornaa. markii aan in cabaara saa u daawanayay baan bilaabay inaan hoonka u tumo miseba maba dhaqaaqdo. haddana dhowr mar u yeeriyey heshiigin nuuxnuucsi maba laha. markaas baan inta gaarigii ka degay qaylo dhagaha kaga shubay anigoo oranaya adiga moodada ayaad iibsatay, maxaad la dhex taagan tahay? jawaab baan filayay, aamusnaan bay igu kaalmaysay. mar labaad baan qayliyey anigoo wejigeeda gacanta uga riixaya misena dhahaya oo maxaad noo quursanaysaa, maad nala hadashid oo wadada ka leexatid. balse jawaabtii aan helay waxay noqotay ilmo indhaheeda mar qura ka soo dareertay. naxdin baan ka qaaday, anigii yaab bay igu noqotay. dhegeystow qaybtii koowaad halkaas ayay nooga eg tahay. la soco qaybaha dambe.